يبقى كيني كرام لكن دقيسة قصة كله صدح نبى النبي عيسى عليه السلام سيدي ولا السعودين أي مادين مل بنانك وذهب كيالو دايمانكو مركز النبي عيسى كويد وحن ودايما والذهب والجوهرات مركز سيد هذا النقاد مركز النبي إلى هاي صدري هي أدوية مال موضة مرتبو كيدي مركز ده أنا كقاعدنا هنا ده هذا قاعدة ثاني راعي مسان واديك هذين وقاعد بودي ديني أدوية اسمه راعي أبو كيدي والنبي الزاهد والنبي عيسى عليه السلام صدح دين ويكهرين بلد النبي أي أندر ذاك مركز الذهب كي قاتن وإلا السعودين وإلا اللقيين مقالة مركز ود وادين بير هذين حضان مالين قال ولا نقدعي هبين هنكو بيجنو لكن وقاجونينا ويتشدين وعيد هذا الله بالذهب كاسي إلى للسوق من مقالة انتو تجو cuntaha inoo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini'aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeenu buu nagu fiican yahay ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeenu ha kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisa ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoo buu kugu fiican yahay cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadii buu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaasi halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga laba qiso cajiib oo quraanka ku taala labaduba waa in nuux iyo in ibraahim qisadii nabi nuux inankiisa markii ummadiisa la halaagayay waa kii ilaahay ku lahaa doon samayso nuuxow adiga wixii ku raacana doonta saar ehelkaagana doonta ugu yar inay fuulaan وكن نبي نوح نجيس ويرى كيري قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال يا بني إنك يجي رايو اركب معنا لنصفون ولا تكن مع الكافرين كافرين تبعوا عنهم كيري قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال سآوي حتى آب مؤرم بالليل ilma aabihii u yeedhay ilma waalidkiisu u yeedhay oo markuu u yeedhay aabbo ama hooyo odhan waaya hada calaamatu shaqaawa bay culimmadu leeyihiin waa calaamatu shaqi waa caaq ilmahaasi sida u jawaabaa laga garanayaa ina nuux jawaabta uu bixiyey eeg ina ibraahimna jawaabta uu bixiyey u fiirso ismaaciil wuxuu yidhi yaa abati ifcal maa tu'mar aabba amarka lagu amray buuxi buu ka yidhi لكن نوح نجيس وحيري سآوي إلى جبل يعصمني من الماء حتى آب مورن بالليل ده اللي يرى شيء يعدي والدته ما أنت أنو لهينو والد تاعو مركو خويا حتى هو يا خويا أنا هو يا معاني ده هو يا معاني هذو أباها كلها لنا هي أبا معانا ده وإلا هذا هو ترى تقولي هو معاتري هذا علامة عقل والدين ويانا نوح إنكيس بدبادو ugu yeeraya inagiina badbaadadii iska diido wuxuu boortaasan biyaa ka fuulaya fahala baynahuma almawj fakana min almughraqin ba ilaahay yiri iyagoo labadooda hadalka isweydaarsanayaan heerkii mawjadihii duufaanka ayaa dhaxmaray deena inagiis waxa ilaahay ka yeelay ku qarraqmay kuwi kana waxa lagu yiri إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى وحن كم منام أنا كبرين يا سيدنا نافق حولها الله برايو يا أبا محي قلت هايبو كيدي قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أبا أمرك إلهي بوحي ويال أنا قاعدين نقطنا وعادي هلي دونتا إنا كمدها كوا صابرين تأتكستين
labada aabba maaha bay culimmadu leeyihiin maaha labada waalid labada aabba maahin waa labada hooyo ayaa kala duwan ina nuuxna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo ilaahay cilaaqa aan la lahayn hooyo nebi nuux aanan rumaysnayn hooyo gaalnimadeeda qarsanaysay oo inankeyga ku lahayd odaygan qaylaya warkiisa ha maqline hor danahaaga qabso ismaaciilna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo tidhi markii cillada lagaga dhaqaaqay tidhi ilaahayna dayici maayo ibraahim oo da iska soco laanna ilmaha baa la yidhi inta badan tarbiyadda hooyadaa saamaysa ee tarbiyadda aabbuhu ma saameeyo inta badan ilmuhu ma hooyuu la joogaa mise aabbo midkuu la joogaa hooyuu la joogaa hadday hooyadu hagaagsan tahayna ilmuhu way hagaagayaan hadday dumarku naga baanaadaanna ciyaalku way banaanayaan waayo dugsiga ugu horeeya mujtamacu ka soo baxaa uu wax ka soo barta waa hooyada haddii dugsigaasi uu noo hagaago uu dugsi diin danaynaya u noqdona mujtamac diin danaynaya soo bixi doona hadday malcaamadahaas iyo dugsiga uu naga hallaabo uu naga xumaado ilaahay nagama xumeeye waa haweenkan u jeeday hadday haweenku naga xumaadaan waxaad ogaadaan jiilalka soo socdana way naga qalloocsameyn ogaada marka dumarkeenna xaasaskeenna gabdhaheenna hablaheenna inaan diinta ku tarbiyadaynaa waxay ka dhigan tahay mujtamaca soo socda hagaagiisii baa ku xidhan gaaladuna laba qolay ku dadaalaan maanta laba qolo dumarka iyo ubadka labadaabay naga soo galaan odayaasha dan uma leh ragga dan uma leh gaaladu labaday ku dadaalayaan maanta waa labadaas waayo jiilkan maanta jooga waxay leeyihiin hayna dhaafaan laakiin jiilalka soo socdaan bedelaynaa bay gaaladu ka fikirayaan inay bedelaan lidalika nebi nuux calayhi salaam islaantiisu maadaamay gaalad ahayd oo gaalnimada qarsanaysay tarbiyadda inankeyga iyadaa saamaysay ismaaciilna aabbihii kuma agbarbaarin hooyo ku agbarbaaray tarbiyaddii hooyadii baa saamaysay hooyo caynkeeya hooyo ilaahay ku xidhan hooyo cidna markii lagaga dhaqaaqay tidhi ibraahiimo ma amar ilaahayba haa ilaahay nima dayacayo socabay ku tidhi ilaahay waa ilaaliya ibraahim inankiisii ma gowricin ibn qayim aljawsi raximah llah wuxuu yidhi maqsuudku ma ahayn ilmaha gowrac maqsuudku wuxuu ahaa jacaylka alla mooyaane jacaylada kaloo dhan qalbigaaga ka sar waxaan xasuustaa dhowr iyo 10 sano ka hor jamaaca magaalo ku baxday magaaladii markay ku baxeen dadkii way dhegaysteen way la yaabeen waxay yidhahdeen war ininku dadkii wanaagsanaa ee masaajida camirayay baa tihiine dadka xaafadan degan ee salaada aanan tukan mid qaado jamaacada u geeya nin odayaa yidhi oday dariskayga oo 70 jir ah oo waligii salaad aan soo galin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisay hadduu igu kiin arkaano inila socdana dhibba ay qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay in soo gaadhana ininka isgaarsiiyay marxaba albaabkii bay garaaceen waa shantii galabnimo isagoo hurdo ka soo kacay quradii khamriguna miiska u dul taallo islaan male ilma male waa keligii buu nool yahay dhowr iyo 70 jir saa u qarqaraya way ag fadhiisteen albaabkii markuu ka furay ina jamaaca nahay masaajidkan ka soo booqanay waa ku soo ziyaaranay ma ziyaarada waan aqaanay u kaadiyo buuri qolkiibu ku noqday lacag buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu mooday qoladii tariiqadaha ee suufiyadu barigo reeraha waa ziyaaradii shaqabale keena orange imku iska dhamaataan u malaynba ana xaqiiqa Djibouti imku iska dhamaatay xaqiina mooyaan imka ziyarada waxa isku badishay ilaahay dartiba qofka loo ziyaaranaya oo waxa badishay ilaahay dartiba ku soo booqano ku soo ziyaaranay waxa diyana kuma sidno waxa diyana kuma kaama doonayne khayrka jamaacada ka yar dhageysan wada dhageysanay markaasuu yaab wuxuu wardad lacag diida markay lacag ma qaadano wali inta noolahay waa qof lacag diida way ku weey maxaa tihiin ma annako adeer lacag ma qaadane laakiin waqtiga dadka ka qaadana waqtiga
labaatan midhan ma nasiin kartaa soo fadhiista wax lacag diida maanaaba arkay buu la yaab bay ku noqotay mugta khamrigiina halkan ay taallaa jamaacaddiina halkan iska fadhiisteen indhahay ka qabsadeen waxay yidhahdeen annaku jamaacad waxaan nahay martiya magaalada heblaayaan ka imanay dadka muslimiintaan ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweynna waan soo buuqanaynay dhallinyaradana masaajidkaan ugu yeedhaynay halkii hadalkaa markay yuu furfurmay wax lacagana ma qaadataan may ma qaadano oo lacagta ayaa inaga bixiya bilmaali wanafsi bilmaali naftayadiiyo maalkayaan ku soo baxnay ilaahay bay markaa kala hadleen cadamadiisii aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikray markaa wuxuu hadalka adigu leedihiin weligay ma maqal buu yidhi weligay wax hadalka iila soo gala ma maqal buu yidhi maxaad iga rabtaan adar ii sheeg lacag waad igu diideen oo wax kale sheegta waxaa kaa rabnaa annagu laba qofaan nahay amiirkii iyo jamaacaddii odayaashii miskiidkay joogaane inaad jamaacadda u tagto waad soo salaantid bas intaasaan kaa rabnaa ma intaa usuhaa waa niraaci dharkii buu soo xidhay dhaladii khamriga halkii buu kaga yimid quradii la socdo masaajidkii buu jamacadda u soo raacay wuxuu yidhi salaad ma aqaano waxaa la waxba male iska weysayso weyse ma aqaano kana ku ag fadhiisana siduu sameeyo samee salaad ma aqaano kana kugu ag tukane siduu isagu u sujuudo u sujuudo suu rukuucan u rukuuc halka intii uu sameeyey ayay liin yar iyo muus yar iyo shaah yar bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafaddu way daawanayaan odayga hebel hebel baa maanta tabliiqii miskiidka soo geliyeen war tabliiq ma soo gelin ilaahay baa soo geliyey yaa soo gashay lain yahdiya allahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam cali nebigu markuu hadalka ku lahaa dagaal buu u diray dagaal khaybar buu nebigu u diray inuu soo baabiyo yahuud laakiin nebigu ka daba hadlo wuxuu yidhi cali ogow miyaan la dagaalamaa buu ka yidhi ilaa sideeda ay ka noqonayaan markaa buu nebigu cali dhegaysa buu ka yidhi mid iyaga ka midoo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geelagiisa casas kaaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa hadday dadku iyakoonan lala dagaalamin ay diintii kaa dhegaysanayaan oo diintii kaa qaadanayaan dagaal meesha ma imanaya ogow dacwa muqadam calaa kulli shay dacwaddaa ka horraysa wax walba jamaacaddii waxay yidhahdeen war anna kuma soo geline ilaahay baa soo geliyey daaya salaaddii maqrib buu la tukaday bayaankii buu la dhegaystay cishaa'igii buu la tukaday cishaa'igii intay soo kaxay bay masjidkii keenaan haddana salaaddii fajar isagoo lugihiisa ku socda masjidka soo galay toddoba maalmood isagoo salaaddii laasimay dembigii ku jirana ka dhex baxay tiisii baa timid oo ilaahay waa ka manna qaatay usmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaraddan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay cusmaan baa ninka u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale aan meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtay maxaad u socoto dee nebiga ii ka soo diray buu yidhi sal alla alay slam oo yidhi cusmaan u tago waxaad ku tidhaahdaa waxuu nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunya iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacagu u dhiibay israafka iska ilaalinayeen maalin buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam miskiidku soo galay wuxuu arkay nin reer baadiye ah oo salaad tukanaya oo salaaddii dhexdeedana ku ducaysanaya
واستاق النبي مركز دعاء دي بولا جيست ودعاء عجيبة دعاء بقول السجاشن وإلهي أمانتيس يا من لا تراه العيون ولا تخالده الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من يعلم مثاقيل الجبال إلى آخر كيغا مركب النبي يقول أبو موسى الأشعري بو يروح كيري نكا دعاء مركو دما ييكن بو كيدي مركب الله يا نيكي النبي قال دونا يا نمر مرحبا مركب النبي صلى الله عليه وسلم غنيمه مركا الله soo qaaday oo xoolo marka uu qaybinayay ayuu kiish lacag intuu ka soo dhex qaaday buu ninkii gacanta kaga riday nin baahan oo faqiir oo reer baadiya oo kuus lacag loo dhibay ka warama saas uu qalbay uu farxay marka uu nabigu ku yiri lacagta sababta aan ku siiyay maad garan buu ka yiri markaas uu ha maxaad u malaynaa ku siiyay tolnimadii siisay buu marka uu nabigu ku yiri waa runta riximkuna xaq way leeyihiin wax la isku siiyay laakiin lacagtan ujeedada ku siiyay waxa weeyaan bihusni thanaa'ika ala Allah sidaad hadeertoon ilaahay aad u ammaanaysay ayaa ku farxay buu rasuulku yiri taa darteed baan ku siiyay buu yiri sidaad ilaahay u bariyaysay sidaad ilaahay u ammaanaysay waayo maqsuudka nabiyada adduunyada loo keenay baa ahaa inay bini aadanka ilaahay ku xidhaan markuu arkay nabigu shaqadiisii oo socota uu ku farxay nabigu calayhi salaatu wasalaam dadna uu siiyey tacalluqa ilaahay dadku ay leeyihiin baa nabiga agtiisa ku weyne lacagtu agtiisa kuma weyno annaka jamaaca bari annagoo khaarijina wadannada gaalada shisheeyaha ayaa la noo sheegay nin muslimo oo Soomaaliya laakiin meeshaan joogno wuxuu jiray 40 kilomitir waa buuqanay in odayo daadiisa ku qiyaasay dhowr iyo 60 jir markaas uu jamaacada halkay ka timid xagga ay dalkii baan ka imanay maxaa u timaadeen dadka muslimiinta inaan soo ziyaaranay bas ajiib kharashka ay naga bixiya bil maali wan nafs oo fiisaha wadankan lama helo si aad ku hesheen ilaahay baa bixiya rizqaaga haduu yimaado halkan waa dhiman ama cizi ku kale ama dulli ku kale maxaa doonaysaa nimka jamaacadii miskiidkaas ay joogaan inaan raacdaan doonayno taanu miskiid xad uma tagaabula xad maalmaha kalena salaadeedana ilaahay baa og buuli laakiin mar haddaad bari ma joogtaan waa xad ha waa niima buuli dalkii Soomaaliya warkiisa rabaayo Soomaaliya hay kaale Soomaaliya warkiisa waa lagu siinaa Soomaaliya islaamnimadan u socono u muuqatee afka Soomaaligu xiiseynaya hayna mari ashuu noo yimid maalintii dambe waan soo dhaweynay nasiib jamaacada waxa la socday oday markii ay istuhudeen dadka Soomaalidu markii ay istuhudaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas war markii hebel adiga la oran jiray ha maxaad ka shaqeysaa imika wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay buu shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baan dhigtaa oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta ku dhimanaad biirsataa maxay tahay bal sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood dariska ka dhaxayaan bartaa buu ilaaqa bayna duwal markaas uu ku yiri xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay salaadeedu waa galab marka xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay professorada jaamacadda inii dhiga xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma ka hadlaan iyagoo ma yaqaanaan markaas lagu waxba ma baran baa lagu yiri xadiiska maadan maqalu nabigu leeyahay a'maaru ummati ma bayna 60 wa 70 cimr al-ghalib ka ummadayda buu nabigu yiri waa 70 iyo 60 inta u dhaxaysa adiguna waxa leedahay dhowr iyo 60 jir baan ahay inteed si noolan doontaa buu ka yiri salaadaydina waxa leedahay waa galab xiriirka adiga ilaahay naga dhaxayna waa daciif kuwan wax ku dhigana waxa tiri xiriirka ma yaqaanaan sidee kula tahay buu ka yiri aw aqligaaga rushdigaaga hadalka siiro basiire jamaacadu u tiri laakiin ninkii habeenkii cishaay barku tukada gurigiisii buu tagay salaadii fajr isagoo alaabtii wato jamaacada u yimiday wuxuu yiri hadalkaad igu tiraada ma xalay ka seexan kari waayay hadalka xalay igu tiraadeen waan ka jiibsan kari waayay
daaciga markuu ninku dad wanaagsan u raaco ummadda khayr u rajaynayo ummadda wanaagayga ka fikirayo hadalkiisa ilaahay wuxuu gelinayaa ta'thiir saamayn buu hadalkaagu yeelanayaa hadaab soo islaaxaya ummaddan islaaxigaad ka soo qayb qaadanaysaa imaam maalik raxmatullaahi calayh ayaa maalin wuxuu arkay nin dhallinyaro ah oo shaarib alkhamriya uu sakraamay markaa deedna markuu sakraamay yarkii yaraa sakraddii baa ka siinaysaa allah 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 sheekhii uu yaabay war sakraan iyo isma aljalaala cajiib cimaamadiisii intuu soo qaaday ayuu soo socday baa la yidho dhareerkii iyo khamrigiibuu afka kaga biiyey wuxuu is yidhi bal magacan magacii ilaahay ismuljalaala afkanuu ka soo baxaya maad ka masaxdidaa deedna markaasuu ka masaxay baa la saasuu ka masaxay deedna markaasuu yidhi sheekh waa sakraansanahay iga teg waa sakraansanahay iska kaydaa markuu ka biiyey buu iskaga tegey habeenkiina ugu duceeyey baa la yidhi ilaahu qalbigiisa adaahayo soo hadeey imaam maalik raxmatullaahi calayh habeenkii markuu jiibsaday ayaa manaan baa lagu yidhi sidaad annaka daraadaya adigu afkiisii dhareerkii khamriga aad uga biisay ayaan annakuna adiga daraadda qalbigiisii khamriga uga biinay baa ilaahay ka yidhi khalaas salaadii maqrib salaadii fajar imaam maalik markuu salaadii tujiyey dadka darsigii buu bilaabay wuxuu ka dhex arkay yarkii yaraayoo darsigii dhex fadhiya markaasuu ma isagii baa mise maaha markaasu u yeedhay markuu darsigii dhameeyo wuxuu yihi yarkii ma tihid haa waa anigii say wax u jiraan bal ii sheeg adigan masaajidkii ilaahay wuxuu yihi xaaladayda xalay toole kii kaaga warramay baa anigana soo aadayey buu ka yidhi xaaladayda kii xalay toole kaaga warramay adiga unba anigana isoo hadeeyey xataa fii siirati cumar waxaa ku taalla haniimadii ayuu maalin maalmaha ka mida cumar dul fadhiistay markaasuu u qaybinaya saxaabada markaasuu arkay nin yaroo gacan go-an markaasuu yidhi gacantan maxaa kaa gooya buu yidhi wuxuu ihi qaswadii halkaas ahayd ayaa dhaawacan lai geystay buu yidhi ku dhaawacmay markaasuu lacagtii buu cumar soo qaaday kun buu siiyey kun kale ugu daray haddana markaasuu cumar u qaybiyaa isagana weli meeshuu taagay oo lacagtii buu tirsanaya markaasuu cumar ninkii isha ku dhiftay haddana mar labaad mar alli markuu dhaawacii arko ayuu soo qaadaa kun kaluu haddana siiya markaasuu cumar haddana u qaybiyaa markaabuu haddana isha ku dhiftay halkii yarka gacanta dhaawacu kaga dhacay markaabuu kun kale qaado uu tiriyaa uu siiya mar dambuu cumar markaa u waaya ki yaraa markaasaa lagu yihi cumar baa war ninkii meesha joogay mey waxaa la yidhi xoolaha aad siisay badnideeda ayuu la dawakhay uu ka socday meeshii wallaahi baan ku dhaartay buui cumar binu khadaab hadduu ninkaa halkaas sii joogi lahaa oo ishaydu mar walba naburkaa diinta ilaahay loogu dhaawacay ishaydu ku dhici lahayd xoolaha halkaa ayaa la isagaa ku dhammayn lahaa buui ma nin ilaahay dartii u cawirmay oo diinta dadaalkeega iyo koryeelkeega iyo difaaceega loo dhaawacay baan adduunyo ka haysan buuhi anigu may wallahi waan ku bixin lahaa buui wax meesha yaalloo dhan ba bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra